munaasabad si heersaraha loo soo agaasimay oo lagu qabtay taliska ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Afisyooni. Munaasabada ayaa ahayd 62 sano guuradii ka soo wareegtay markii si rasmi ah loo aasaasay ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona xafladda ay ka soo qayb galeen taliyaasha ciidanka dhulka badda, hogaanada ciidanka xoogga dalka iyo qaar ka mid ah taliyaashii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi una hambaliyay ciidanka cirka. taariikh muhiim ah, taariikh ummadda Soomaaliyeed meel uga taal aasaaskii ciidankii ugu horeeyay Soomaaliya ciidanka cirka oo tirsaday 62 sano. waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan halkan salaan iyo bogaadinba uga soo jeediyo taliyaha ciidanka cirka oo munaasabadan agaasimay iskuna soo dubariday. waxaan rabaa inaan ka xuso maanta waxaa nala jooga diiwaanadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo haya taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed oo run ah. taliyaha ciidamada cirka Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Cali ayaa ka sheekeeyay taariikhda ciidanka cirka Soomaaliyeed iyo muhiimadda uu leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankan asaaskiisa hore 1954 dhexdii ahaa waa markii loo diray niman dhalinyaro ah waddanka Talyaaniga. laakiin waxaan u yeeray dufcadii labaad nin ka mid ahaa oo 56 la diray ayaan u yeeray, laakiin nasiib darro ma imaan. aan rabo inuu taariikhdaa ka sheekeeyo. kadibna dufcadii labaada waxaa la diray 57 labada dufcadba waxay raaceen markab bayna ku soo noqdeen oo lagu soo dhameeyey Casab, lagu soo dhaweeyey Jabuuti, lagu soo dhaweeyey Xamar, meel kasta tagaan. aaska ciidanka waxaa 58 waxaa soo noqday duuliyayaashii u horreeyey oo ahaa 57 waxaa soo noqday hal duuliye. allaha u naxariisto taliyihii u horreeyo ciidanka cirka Soomaaliyeed Dhamme Axmed Sheekh Macow oo 11 bilood keliya taliye ahaa, laakiin taariikh ka tegey markuu intiisa dhiman. taliyihii ku xigay allaha u naxariisto Cali Mataan Xaashi oo 58 soo noqday ayagoo 5 ah. محمود علي فيتان نك الجامعة أحمد جامع علي أحمد عبد الله اللي بيدرس سجنا إيوه إنجنير كوريي اسمه الشيخ معو أيها رسول الله. تبوا حلو نقول يوم ما أنت لوجي تاريخ عيد كأركا waxay ahayd taariikhdii markii u horeysay oo laba diyaaradood oo DC-3 ah ay qaataan laba kuru israacaan ay Soomaaliya ku soo wareegaan ay kaligood soo noqdaan. taariikhda maanta halkaas waxa loo keenay markaas ay ahayd oo la wareegeen ayaga awood. sidoo kale waxaa goobta hadallo kooban oo dhiirigelin u badan ka jeediyay taliyaashii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi Naqarshe iyo Sareeyagaas Maxamed Aadan Axmed Buud iyagoona ka hadlay muhiimadda ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leeyihiin ciidanka xoogga dalka. waxaan leeyahay ciidanka cirka iyo ciidanka baddu waa ciidamo ku fadhiya technology casri ah. waxaan rajaynayaa kaalinta ay leeyihiin wax maalin iyo sanad iyo 2 iyo 3 ugu dhisi kara maaha, laakiinse waxaa loo baahan yahay in la dhaqaajo oo qorshaha loo dejay ee la yaalla in tallaabadiisa la qaato oo lagu dhiirrado. waxaan balinayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dalkasii joogaan gaar ahaan ciidanka cirka oo 62 sano jirsaday oo aan ognahay mowqifku shalay joogay iyo maanta ma joogan hor nooga muuqato. laakiin waxaan aaminsanahay rag badan oo dhalinyaro ah oo shacabada ka soo baxay haddana dawladda ku maqan oo aan raggii ka kicin lahaa meeshaas in ciidanka inay u maqan yihiin baan ogahay. ayagana waxaan leeyahay markay kusoo biiraan guul baan waxaan rajaynaynaa meesha uu joogo meel ka sarreysa inay geysaan. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliya ayaa ka hadlay
ahmiyadda ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoona sheegay in ay ku dadaalayaan dhismaha iyo tayeynta ciidanka cirka Soomaaliya. waxaan idin bogaadinayaa sanad guurada aasaaska ciidanka cirka aad u dabaaldegaysaan maanta oo 62 guuradiisa ah laakiin taariikhdiisa intaan ka akhriyay 54 baa ciidan Soomaaliyeed la aasaasay waagii maxkamada lagu jiray aasaas rasmina sida Generaal Maxamuud Sheekh aan ka wareysana 58 buu ciidankaasi rasmi u aasaasay laakiin waxaa loo magac baxshay 15 Febraayo 1960 magacaan ciidanka cirka Soomaaliyeed marka waa ciidan facweyn oo wixii dalka helay gabagabadii munaasabadda 62 sano guurada ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 1960 lagana joogo 62 sano ayaa si wada jir ah waxa ubax u dhigay taalada geesiyaasha ciidanka cirka agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka cirka.